sidee ku ilaawi kartaa ruux jacayl idinka dhaxeeyay oo aad kala harteen? waxaa baryahan ku batay baraha bulshada qoraalo badan ay soo dhigaan dhalinyaro ka cabanaya jacayl dhex maray laba ruux, wiil iyo gabar, isla markaana uga hadlaya weydiinta ah sidee ku ilaawi kartaa ruux jacayl idinka dhaxeeyay oo aad kala harteen. arrintaasi culimada cilmi nafsiga waxay ku soo koobeen 6 qodob oo ay yiraahdeen waxaa laga gudbaa dhibaatada ka dhalan karta qof aad isjecleedeen oo aad kala harteen. haddaba qodobadaasi waxay kala yihiin: qodobka koowaad waa inaad dishid oo aad baabi'isid rajada aad ka qabtid inaad qofkaas ku soo laaban doono. 2 inaad xusuusato intaadan isbaran qofkaas noloshaad ku nooleed ee farxadda lahayd, kadibna aad garwaaqsato inuu yahay qof noloshaada soo galay haddana ka baxay. 3 inaad ilowdo dhammaan wanaagii idin dhex maray ama idinka dhexan jiray, taas beddelkeeda aad xasuusanaya khaladaadkii uu ka gali jiray qofkaasi. ogow taasi waxay dishaa rajada qofkaas aad ka haysatid. 4 wax calaacal ayaanan ka gaarin baraha bulshada sida Facebook, WhatsApp iyo wax la midka ah. ha ka balogarayn oo yuusan ka dareemin wax isbeddel ah si shaki uga galo jacaylka idinka dhaxeeyay. 5 ka saar wax walba oo aad ku xasuusin kartid mobilka qofkaas aad jecleed, sida sawirada, fariimaha, wax walba aad isweydaarsan jirteen. kala tasho asxaabtaada aad sirta u qarsataan si ay nafisaad kugu noqoto, talooyin badanna ay ku siiyaan. fulinta 6 qodob waxay ka saacidaysaa inaad si fudud ku ilowdo shakhsigaas aad kala harteen.